waqtiga ra'iisul wasaare xamse cabdi barre iyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee dhismaha golaha wasiirada ayaa soo gaaray saacadii ugu dambeeyey waxayna leeyihiin kulamo aan loo kala kicin 48 saac ee la soo dhaafay. madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa ayaa labadii habeen ee la soo dhaafay yeeshay fadhiyo qaatay saacadii ugu badnaa iyadoo dibadda isaga saareen dhammaan shaqaalihii iyo ilaaladii la socotay waxayna doodooda salka ku haysay wada tashiyada iyo xulashada golaha wasiirada. labada maalmood ee ugu dambaysa toddobaadkan ilaa bilowga toddobaadka kale ayuu qorshuhu yahay in ugu dambeyn lagu dhawaaqo xukuumadda cusub ee uu dalku yeelan doono. dhismaha xukuumadda Soomaaliya ayaa sanadkan ka adag sanadii la soo dhaafay waxaana codsaday dadkii ugu badnaa oo raadiya golo wasiiro sida ay noo xaqiijiyeen ilo wareedyo ka agdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. sida ay qabaan dadka oo durasa arrimaha siyaasadda Soomaaliya iyo dad kale oo ka agdhow xafiiska madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha sanadkan waxaa fursad heli doono dhalinyarada waxaana golaha wasiirada laga reebi doonaa shakhsiyaad aan marna xukuumadii dalka soo maray laga dhex waayin 20kii sano ee la soo dhaafay kuwaasoo sanadkan cadaadis kala kulmaya dhalinyaro aqoon-yahano ah halka qaarkoodna oo saameyn ku yeeshay siyaasadii isdiidanaa ee dalka soo maray sannadii ugu dambeeyey. dadka ilaa hadda la rumaysan yahay inay ku adkaan doonto ka mid noqoshada golaha wasiirada 20kii sano ee la soo dhaafayna ku dhex jiray waxaa ugu horreeya 4 xubnood waxaana xubnahaasi ka mid ah Professor Cabdullaahi Sheekh Cali Qaloocow oo hadda ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya. 20kii sano ee la soo dhaafay ayuu ka tirsanaa xukuumadda Soomaaliya laakiin sanadkan waxa uu mari la'yahay nin lagu magacaabo Dr. Cali Ifiya Cali oo 10kii sano ee la soo dhaafay u shaqaynayay hay'ado caalami ah iyo kuwa lookal ah. Cali Ifiye waxaa la sheegaa inuu mar ka mid noqday golaha wasiirada ee maamulka Jubbaland waxaana lagu tiriyaa dadka ugu dhow madaxweynaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo ra'iisul wasaaraha cusub ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. ninkan ayaa safka ugu horreeya ku jira saacadii la soo dhaafay iyadoo uu qayb ka yahay dhalinyaro aqoon-yahan ah oo sanadkan magacyadooda ay hor yaallaan miiska go'aanka lagu gaarayo golaha wasiirada Soomaaliya. xubno ka mid ah odayaasha dhaqanka iyo siyaasiyiinta beeshaas ayaa la sheegay inay qayb ka yihiin dadka raadinaya inuu ku matalo xukuumadda Soomaaliya ninka lagu magacaabo Cali Ifiya Cali laakiin mas'uulkan waxaa sugaya inuu la yimaado farsamadii uu kaga gudbi lahaa Professor Qaloocow oo aan ahayn nin si fudud uga dhex bixi kara xukuumadda Soomaaliya. sidoo kale xildhibaan Khadiija Maxamed Diiriye ayaa wajahaysa hubinti la'aan xoog leh waxaana la sheegayaa in maalmihii la soo dhaafay ay aad u raadisay dadka agdhow Xamse Cabdi Barre si ay ugala hadlaan mustaqbalkeeda ka mid noqoshada golaha wasiirada Soomaaliya inkastoo aysan weli helin rajo ay hurdada ku ladi karto. xirsi aadan Rooble wasiir ku-xigeenka gaadiidka iyo duulista hawada iyo Maxamed Cali Xagaa wasiiru duulaha wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka ah siyaasiyiinta muddada dheer ka tirsanaa xukuumadii dalka soo maray laakiin sanadkan ka walwalsan mustaqbalkooda siyaasadeed ee ka mid noqoshada xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. siyaasiyiintan iyo qaar kale ayaa culayska ugu weyn kala kulmaya dhalinyaro siyaasiyiin ah oo ka faa'iidaysanaya isbeddelkii siyaasadeed ee dalka ka dhacay tabasho ay qabaan qaar ka mida beelaha Soomaaliyeed oo raadinaya isbeddel iyo waxqabad ayaa sidoo kale dhalinyaradu sanadkan ay ka helayaan fursado.